taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ahna taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaana goobjoog ka ah si loo bandhigo waxyaabahan waxaan rabnaa inaan soo bandhigno howlgalka Samakaab fayskiisa koowaad talaabadiisii ugu horeysay wixii lagu soo qabtay aan ka bilaabo saldhiga Hiliwa oo soo qabtay 6 qofood oo dhac bareera geysanaysay oo waliba la haayo isla moobeeladii ay dhaceen iyo qorigoodiiba la isla haayo iyo 4 qofood oo ciyaal weera ah oo kuwa dhibaatada badan ku hayay bulshada Soomaaliyeed ee bariyaan dambe ay ka harsan weysay sidoo kale saldhiga wadajir oo asagana kamid aha meelihii ay dadku ka cawanayeen waxa laga soo qabtay 1 qof oo watay qori AK47 oo dhacay mobile iPhone ah oo qofkii uu ka dhacay daqiiqada soo moogeenba la soo qabtay sidoo kale ciyaar weera ilaa iyo 5 qofood la soo qabtay oo saldhigaasi ay gacanta ku soo dhigay oo howlgalkii bulshada iyo booliiska iskaashanaya ay tilmaamihii ay baxsheen lagu soo qabtay oo qaarkoodna waliba cadeyntoodii wata sidoo kale saldhiga Wardhiigle ee asana soo qabtay 2 qofood oo dhac u geysatay tukaan oo kuwii darbi ka boodeed loo yaqaanay oo ayagoo tukaankii ay dhacay mar labaad ku soo laabtay gacanta lagu soo dhigay oo marqaati furaya oo cadeynaya isla ayagii dhacay sidoo kale aan u soo gudbo saldhiga Kaaraan oo howlgalkaani buddhig u ahaa maadaama dadweynaha degmada Kaaraan degan ay aad uga cawaadeen ciyaal weero bulshadii iyo booliiska saldhiga iskaashanaya iyo howlgalka Samakaab waxay ku soo qabteen niman lagu tuhunsan yahay waliba tuhunkoodii dhow yahay oo eedeysana u ahaa dilkii Macalin Nuur Jimcaale oo dilay goobtii lagu dilay saldhiga goobtii lagu dilay Macalin Nuur Jimcaale agtiisa ayagoo moobeelo ku dhacaya la soo wada qabtay ayadoo marqaatiyaal loo hayo eedeysanayaasha inay ku cad yahay dilkaas inay geysteen number 2 eedeysanaha degmada Kaaraan dadka ku dhacay 15kii bishan ayaa isna gacanta lagu soo dhigay iyo moobeeladii uu dhacay iyo qorigii uu watay sidoo kale degmada Kaaraan waxa lagu soo qabtay hogaamiyihii ciyaal weerada ee degmadaas oo cadeymihiisu dhameystiran yihiin asagii baqiraal ah oo TikTokyada email kastana yaala oo qiraalkiisuna cad yahay marka hogaamiyaheeda gacanta lagu soo dhigay waxaan rajaynaynaa goordhow in degmada Kaaraan qof kasto ciyaal weera kamid ah gurigiis ugu tagno maadaama magacyadoodii iyo ayagaba ay yaqaanaan waxaan kala rabnaa inaan isu soo bandhigno 2 jawaan oo xashiish ah oo degmada Hiliwa lagu soo qabtay oo idin muuqday haddaba oo sandaqadii lagu qabtay markii ay ciidanku arkeen ay ka carareen ninkii joogay aan ku raad joogno wali eheladii iyo dadkii lahaa sandaqadaas oo xashiish iyo laga helay waxyaabo maandooriyaha oo iibinayay waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed in la wadaago ee gobolka Banaadir ku dhaqan sidoo kale waxa dhaqan galay mootada la joojiyay 6 saac wixii ka dambeeyay kaliya looma joojin howlgaladan waxa kaloo jira dhibaato dhaqanka Soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta markii ay 3 saac la gaaro dadiyowga seexdaan kalaabiya iyo soo aada hoteelo meela gaar ah oo ayaga ay sameysteen oo lagu dhibaateeyo cabasho nooga timid dadiyowgaas ayuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu go'aansaday wixii 6 saac ka dambeeyay inay samooto soconin ilaa laga cirib tirayo waxyaabahaas dhaqanka ku ciyaaraya waxaana u joojinay in dhalinyarada iyo gabdhaha yar-yarka ah ee xaafadooda ka soo dhuunta ay joojiyaan wareega wixii 6 saac ka dambeeyay uma aan joojin operationka kaliya booliiska Soomaaliyeed muhiimadda uu siinayo ilaalinta dhaqanka iyo diinta wuxuu u dhisay hoggaan si loo ilaaliyo bulshada Soomaaliyeed oo bariyahan dambe ku soo batay waxyaabaha maandooriyaha ah haddaba guud ahaan dadweynaha gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay u soo gudbiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida haddaba ula shaqeeyeen dadka dhibta ku ah ammaanka dhaqanka iyo diintaba waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya Muqdisho inay sidii hore ka roonaanayso nabaduna ay barwaaqa noo dheeraan doonto waxaan rajaynayaa saxaafadda iyo degmooyinka ururada bulshada dhamaantoodna waxaan ugu baaqaynaa in la sameeyo wacyigelin si bulshada Soomaaliyeed ay ugu soo reyso waxyaabaha maandooriyaha ah oo 90% dhibaatada amni darrada ugu badan dhalinaya waxaan rajaynayaa howlgalkan Samakaab wajigiisa labaad degmada Yaaqshiid aan maanta joogno waxay soo bandhigtay howlgalo muhiim ah degmooyinka iyo qaybaha waa kala amaanan yihiin ayadoo uu balan qaaday taliska booliiska Soomaaliyeed qaybtii ku guuleysata soo afjarida waxyaabaha dhaqan xumada ah
in abaalmarin la siin doono qaybaha booliiska gobolka Banaadir haddana waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed inay booliiska la shaqeeyaan ciidamada ammaankana ay kaashadaan bulshada wada shaqayntuna waa nabadda dalkeena waana mahadsantiin